daawadayaal waa mar kale Faafiye show asbuucan programka waxaan uga hadli doonaa wadamada Carbaha iyo dhibaatada ay dadka kala kulmaan siiba dadka Soomaaliyeed programka waxa ay la daadihinay caawa waa Bashka Maxamed iyo Ahmed Shiine ku soo dhawaada Faafiye show. Thank you, brother. Yeah, thank you guys. Marka caawa programka waxaan rabaa mowduuca ugu horeeya aan rabo inaan ku bilaabo ayuu wuxuu yahay wadamada Carabta iyo qaabka ay ula dhaqmaan dadka madow. Waxaa bariyahan ku soo badanaya internetka hadaa fiirisid videoyo muujinaya abuse mise jirdil loo geysanayo dad badan oo madow mise Soomaali ha ahaadaan mise Afrikaan kala ha ahaadaan. Ummad badan markay tagaan Carabaha wadamada Carabaha waxaad u malaysaa inaysan xuquuq ku lahayn. Marka asbuucan programka waxaan ku bilaabayaa video aan jeclaystay inaad la daawataan markaan videogaas daawano kadib ayaan isku soo noqon doonaa. يا ظالم موتنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا معين الوالدين حرشنا في وجهه ايوه ايوه لا عليه الطلاق معلوم 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 اجلس اجلس يا سالم معلوم اجلس والله معلوم ايه يا سالم معلوم يا سالم معلوم والله ها خير waxaan filayaa videogaas inuu aad idinka naxiyay yani waxa videogaas ka dhex muuqda ayaa waxay tahay wax xaq jirnimo ah bilaadnimana ahayn sidaan videogaas ka daawanay waxa videoga ka dhex muuqda qof uu loo maleynayo inuu yahay Soomaali mise Afrikaankan kale laakiin badanaa ay dadku u badiyeen inuu Soomaali yahay iyadoo aan wali la xaqiijin waxaa dhacda dad badan oo Soomaaliyeed inay aadaan wadamada Carbaha iyagoo u raadsada shaqo laakiin badanaa waxaa dhacda dadkaasi inay kala kulmaan dhibaatooyin badan marka dadka Carabta ah hadaad fiirisid yani Soomaalidu markaad fiirisid waxay u heestaan markay aadayaan meeshaas inay dal wadan muslim ah u socdaan laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay waxay kala kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan iyagoo aad u malaysidna inaysan wax xaquuq ku lahayn marka wadamada Carbaha iyo dadka Soomaalida ah sidee baa la kala yeelay hadaa fiirisid wadankeeni waa ognahay dhibaato badan ayaa ka jirta laakiin Soomaalidu waxay ku maamaahan waan baahanahay baqti loo macno marka arimahan oo kale marka aragtid waxay kugu dhalanaysaa yani naxdin oo aad la yaabaysid sidee dadkan u dhaqmayaan dadkan Carabaha ah ayaad marmar waxaad moodaa in ay ka daran yihiin ummadda kale oo gaalada ah yani dadku waxay u aadaan iyagoo isle wadan Carab oo muslim ah ayaa u socotaa laakiin waxa dhibaatada ay tahay waxa weeye wadamadaas badanaa markay aadaan wax xaquuq ah kuma laha Bashka haddaan adiga kugu bilaabo maxay kula tahay dhibaatada loo geysto ummadda Soomaaliyeed haddii aan sii faahfaahina xataa loo geysto ummadda madow markay aadaan wadamadaas Carbaha oo kale aniga horta videoga aan daawanay waxyaalo badan oo waxaa jira oo marka aad fiirisid wadamada Yurub iyo wadamada Carabta aniga Carabta maba jeclaysan dadku u tahriibayo ana waxaan dhihi lahaa ka jooga waxaa dhacay horta slavery waxa la dhahay ma dhamaanin dadka waxay u maleeyaan adoonsigii adduunyada inuu ka dhamaado laakiin ma dhamaanin maxaa ku tusinayso videoga hadda aan daawanay in ninkan lagu qasbay macnaha waxaa laga yaabaa lacag inuu ku yeesho lacagteeda isii wadankayga ku noqona oo laababa noqonaysid ana adoon ii tahay halkaana joogaysaa cimrigaaga inta ka dhiman la haysto beerta lagu fasho xoolaha lagu raacdo waxbana aan la siinin ma fahamti marka dadkan dad ani waxaaba liiqaat inaan Yurub soo galabo oo dad iska gaala maxaa dhacay xuquuqdooda la fiirinayaa Carabtan xuquuq ma yaqaanaan bini'aadanimo ma yaqaanaan ashaatinka bisa naga dhaxayaan ay dad muslim ah weeyeen laakiin waxay ka daran yihiin saa sheegtay ummadan kale dad ku dilaayo ku dhacaayo ku xoogaayo come on bro hal aadam ma ay Maxamed waxa ku darsanaysaa arintaas and thank you markore Mr. Lee Faafiye show nagu soo dhaweysay waa ku mahadsan tahay thank you and aniga waxay la tahay saaxiibkay Bashka oo quracsanahay in la yiraahdo wadamadan Carabta markii la fiirsho
waxyaabaha ay kula dhaqmaan dadka Afrikaanka siba aan tusaalahaan markaan ka hadalno Soomaalida Afrikaanka kale waa kaga dhownahay maxaa yeelay waxaan nahay Muslim Arabtuna waa ay si u badan yihiin wada Muslimiin khaasatan dad derisnahayna waa nahay diin waa shargalayna dhaqanna meel baa iskaga shabahnaa hasi ahaatee xaqiiqdii markii loo fiirsho wadamada sida saaxiibkay ka dhawaajiyay sida Yurubta mise Westernkan joogno oo kale qofka bani'aadinka waxyaabo badan buu leeyahay oo xaqiisa yani xuquuq ahaan loo siinayo marka hore waxay ka mid tahay xorriyada qofka bani'aadinka uu haysto xuquuqul insaanka number 1 ha صح xagga waxa lagu malaynayaa marka joogtid marka ninka Arabka hadaa u shaqaynaysid iyo hadaa la joogtidba laba darajo kala tin asiga wuxuu leeyahay waa number 1 ha adigu wuxuu ku haystaa inaad tahay yani zero صح wax ka soo qaad lahayn صح marka aniga waxaan dhihi lahaa Soomaalida siba hadday ay ku fikiraan inay yiraahdaan yaa u fiican Arabta mase Afrikaanka kale anu waxaan dhihi lahaa Afrikaanta u fiican marka Afrika iskaga biirto iskaga daayso sheekadan la yiraahdo Arabban ka soo jeednay so waxa leedahay yani hadii intuu Arab ku abuse garan lahaa dalkaaga inaad joogto ku dhamo exactly inaad boqolkiiba inaad wadankaas ka joogto ku dhamo waayo waa ujeeda waxyaabo hadda ka socdo Liibi muxuu ahaa ninkii magaciisa Magef صح nin bibaa dad iska shahaadinayo ku haya everyday la soo geliyo YouTube ku haya la ilaaha illa ku hayo garacaya oo iska mataqaana zero yani waxba umada taraan marka Afrikaanka noo dhan صح hanta inoo dhan thank you Ahmed Shiina waxaad ku daraysaa intaas horta liiwa ma santaa okay thank you horta sida walaalay sheegana ku raacsana 100% waa wax xawayaanka kii way dhaafin soo dhaqmanayaan waxyaalaha qaarkood ay soo binayaan dadkaneeto horta ma sha Allah ani ayaga maxana dhaxmar diintana dhaxmarto nabigeena sallallahu alayhi wasallam bil aadan inta ilaahay qalqal ninka ugu sharaf badan buu ahaa صح ma fahanteen ninkaas ay ka dhashay asxaabaheena ay ka dhasheen dad culus baa ka dhasheen laakiin lagama arko dhaqankoodii hore iyo dhaqankoodii sidoo ahaa qof hadda haysto thank you 95% of them wadamada Carabta dhan hadda wada eegtid kulli ilaa hadda ya cabiidi waxay ku arkaan ba wax sidoo buu sheegay dameer baqti agtooda ka tahay صح si kula dhaqmanayaan ma fahanteen gaaladana dhaanto gaaladan qurbada nagu soo dhaweeyeen sharciyana siiyaan opportunity waa shaqaysanayna wax xoogsanaa waxbaan baranayna inta gaalada noo qabatay Carabtaas oo diinta wada sheergalana dheen walaalahan way la ilaaha illallah isku keentay nooma qabtaan صح صح anaga maxaa kale u qabana anaga hablaheeni yar iyo dumar kuwa waaweynka ku yariiska maxaan subin oo ogeen inay ka shaqaystaan actually yeah taasaan rabay inaan ka hadlo yani dowladii Soomaaliya inay gabdhaha intay ku gurto diyaarado u dirto Carabaha Sacuudi Carabiya oo la leeyahay waliba markay xaggas tagaan in qaarkood la kufsaday qaarkood la dilay صح Facebook aatore I'm glad you mentioned that Facebook hadda koor ka akhriye gabar walaasheed ka baxday inay nin u soo shaqayso she never returned way ku soo laaban week iyo xogaaba ka soo wareegay gabadhii si loo raadana marka dambe waxa la helay iyadoo la kufsaday jirkeedana la jarjaray bacqashana laga helay marka gabdhaheenin anagana gabdhaheeni baa u dirsanayna dad waxaan ka dhignay oo sharaf baan u yeelanaa ayagana waa cawaan dhaafeen wax sida u fikiraan sida noo arkaan qurbadan markaas la joogna ma brother am muslim lagu leeyahay ma brother dhulkooda marka joogan dhulka ku jiraan waa gaalimadooda ka daran yihiin ma fahamta 100% gaaladana dhaamaan that's true thank you waxa ka daran waxay ku haystaan inay ku leeyihiin waxaa laga naqanayaa wakiil yani waa ka sii shisheeysa wakiil ma aha kafiil that mean ana kula weey yani
ilaahay ka sokow Yeah, anaa ku leh ilaahay ka sokow anaa ku leh ha so you have to do wax walba aniga aan kuu sheego waa inaad samaysaa haddii hataa amar la-aantiisa laga yaabo inaad meel yar aadid uu ku yidhaahdo maxaa dhacay ya iyo aniga midaan kula yaabay horta waxaa waaye dadkan carabta ah wadamada sacuudiga oo kale hadda dadka horta badanaa hadda sanadkan oo kale waxaa ognahay mareykanka kale in laga doortay nin la leeyahay muslimku necab yahay sidan weeye mugta laakiin midda u baahan yani in la mention gareeya waxay tahay wadamada carbaha markay ummaddu tagaan storyaal waxaa maqlay xataa lagu leeyahay gabar uur leh ayaa dhakhtar aadaysa 9 bilood waaye 9 bilood iyadoo tahay waxaa la weydiinayaa maxaa la mustadawaqa ma yiraahdaan ma leedahay waraaqa dalka ku joogta iqaamo waa qof uur leh inuu xanuunsan yahay laga yaabo waxaa laga yaaba qoftaas inay meeshaas bug ku gashay mise whatever oo yani sida hadda dadka Mexicaanka laga sheegay inay darbi ka soo booday whatever ay tahay laakiin midda kaliya oo yani in la mention gareeyo u baahan ayaa waxay tahay ninkan gaalka markuu ku qabto basic human rights ka uu ku siinaya yes xuquuq bini aadan food haddaan medical attention u baahan tahay wixii oo dhan waxaa alal xumo ah in lagu leeyahay gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa ku umur raaca markay Sacuudigaas joogaan sababta ayagoo qaar isqaranayaan bay guryaha ku dhalaan qaarna anigu sidaan ku maqlay waxaa weeye dhakhtar bay aadaysaa iyadoo ahaa xanuunsan waxaa leeyahay baashi warqad ma leedahay maya waxaa laga yaabaa in xabsi sidii lagu geeyo aan hataa loo ogolaanin inay dhakhtarkaa ku dhasho sababto inta laga cararayo waa cunugaasi dhalayso wadanka xaq buu ku yeelanaya magaranaysaa hadhowna la tarxilo sax marka xabsiga ku dhex dhalaya xabsigay ku dhex dhalayaan qaar baa ku dhex dhinto qaar baa ku umul raaco you know taas marka waa mid looga baahan yahay Soomaalidu inay ka digtoonaadaan yani ninkan adigu waxaad u aaday waad soo dhawaysanaysaa waxaad isleedahay waa nin muslim ah laakiin realityga waxay tahay waxaa dhaanta xataa anigu saan aaminsanahay inaad yuhuudda la noolaatid sababtoo ah at least waxay yaqaanaan xuquuq yani bini'aadanka human rightska ayay wax ka garanayaan ma garanaysaa sax waa kugu raacsanaa aniga boqolkiiba boqol lii waa kugu raacsanaya in ani nin yahuuda nin caraba nin yahuudan diris la noqonayo maxaa dhacay ninkan carabka ah horta maar dadka si ula dhaqmaan magacaaga ma kugu yeeraa yaa cabdi oo kugu yeeraa yaa cabdi maxay tahay mataqaanaa adiga yaa cabdi waa addoonaa tahay waa addoon slave ma oga inaa cabdullahi ina ma oga aniga ilaahay addoonkiisana ma oga miya yaa cabdi تعال هنا I don't like Saudi Arabian I don't like all the Emirates kan Kuwait kuwa la dhahayo mataqaanaa I don't like Saudi Arabia I don't like Kuwait I don't like all of those gas ay haystaan wax walba intii dadka muslimka soo dhaweyn lahaayeen sponsor lahaayeen iskuulaad siin lahaayeen waxbarasho siin lahaayeen shaqo siin lahaayeen waa la iska kaa bixinaa saaxiib iyada waa ii shaqaynaya waaye kabaha ii qaadaysa oo iidan iiga baxa wadankii صح waa laga faa'iidaysanaya annagana markuu wadankeena joogo waxaan leenahay oo ninka hala nin muslim nin muslim garweyn oo qamiis ma awiran in la dharbaha way kaasoo kale loo yaa cabdi asna oo la tusiyo xanuunka aniga bashka fikradda waa sax dhibka jiraa waxay tahay anigii Soomaali haddaan nahay baa waxaan leenahay Arab baan galnaa no Arab miya aniga I'm not Arab Somali waa ahay like I'm not Soomaalida ku faan intaas no I'm Somali but I'm not Arab I'm African I understand I understand I understand I am African bro I'm not Arab waa kugu raacsan Somali badankood waxay aaminsan yes you're right 100% saxata laakiin waxaan ka hadlaynaa qadiyadii dad baa le Arab baan nahay yani Soomaalida dad baa iska Arab baan meel bay ka carrayaan markay saa dhahay qof ka carrayaan at least ya qofka markuu yiraahdo listen had markuu yiraahdo qofka African baa ahay automatically African will accept because yani ada African kaaga yes waa fan Soomaali yes laakiin Arabti hadaa tiraahdo Arab baan ahay what do you think okay Arab hadaa dhahdo Afcari ma ku hadashaa su'aalo ku weydiinaa Arab ha dhahdaybo Afcari ma ku hadashaa may ka soo qaadmo waxaan ka hadlaynaa generally arrinta Soomaaliya ka hadlaynaa generally yes yani markay leeyihiin ani totally waa ka soo horjeeda صح waxaan ka soo horjeeda in la yiraahdo Arab baa wax noo galaya Arab baan nahay totally waa ka soo horjeeda Afrikaan baan nahay jaamacadda Carabtana ku jirnaa miya political baa loo galay saan rajeynaa anu wax ila Arab manin anaga laakiin no ma Soomaalida horta naftirkooda hadaa fiirsid sheekadan Carabta in badan baa maqlay laakiin hadaa fiirsid Soomaalida waxay sheekada u yiraahdaan meelay ka carrayaan jirab garaysaa Bantu ma manihim ay tageen Kushites mataqala dadku way kala baxaan Sooma Kushites Bantu Semitic waxba u kala baxaan mugta qaybahaas oo dhan kuma jirnay taagan Arab baan anagu
وراح مجراني meeshaas waa meesha ka timaada عربك حتى إذا شيء هلا درباحه هلا تصيو يا عبدي هلا ده هلا حنوجيو هلا تصيو إنه ودن الله ده هاي ما سمرايا ستكيسة على الله ما فهمت وراني السعودية أحمد شين هذا هو الكوت كودي السعودية أنا هذا كو أركو إله موجو حقيسه حنقلول بوصاصه مقدسه بلدوين إله ما شرب عنكو قبته عقامة فين عقامة ما نها ترحيل يا معلنا أنت خبرش إنه يقيع سو ترحيل لها أركورت حنون إنه ودن لا دارت waa midda kaloo haddana aan la yaabaniyo waxaa waaye hadda saa ognahay dalkii abaaraa ka jiro soo maha صح gaaladii baa meel walba ordaysa oo waxay isku dayaan inay dadka caawiyaan wax walba صح ninkan hadda dalkan sacuudi carabiya kale haddaa fiirisid waa dalka maybe dalka ugu weyn oo islaamka ah haddii la Ugu qanisan fiiriyo ugu qanisan thank you yah thank you aniga midaan la yaabo waxaa weeye niyaho dadkan laga leeyahay boqor hebel boqor sacuudiga boqor whatever yah iyagoo intoo meel soo istaageen ka hadlaya niyaho dadkan masaakiinta ah ee muslimka ah see loo caawiyaa maalin dhaweed hadda waxaa la sheegaya boqorka sacuudi carabiya oo kale safar buu wuxuu aaday malaysia ma ahayd meel buu aaday ninkaas waxaa lagu leeyahay dadka la socday wuxuu ahaa 1,500 oo qof alaabta uu watay laagajkiisu waa 500 tons yah oh my god laba elevator oo dahaba suu diyaaradda miduu uga soo dogay miduu derbiyada meelaha ku koro ayuu sii qaatay laakiin islaamnimo maaha haddaa fiirisid yani qofka islaamka waxaa lagu yaqaanaa inuu humble noqdo صح inuu yani diintaaba ku farayso inaad dadka caawiso mugto صح guryo dahabaan hurdaa laakiin dadkana ma caawinayo oo mataqaanaa kaadada dahabay taagan magaranaysaa maya subxaan allah maya haddii dadkan diinta way ka tageen diinta mataqaanaa diintu dhul barakeysan waa dhulkooda way kusoo degtay maasha allah abubakar sadiiq radiallahu canhu haddaa soo qabto mar waxaa jirtay laisku soo aroorinayo sadaqo nin walba asiga khaalid bin waliida la tartamaya radiallahu canhu khaalid bin waliid nabigu u keenay sal allahu alayh wasalam wuxuu dhahay intaanito sadaqada waaye gurigaaga maxaa uga soo tagtaa dhahay markaas wuxuu dhahay intaan keena haafkeeda kale uga soo tagay abubakar sadiiqa imaad radiallahu canhu asna markuu dhiibay gurigaaga maxaa uga soo tagtaa dhahay allah subxaana wa tacaala ee nabigiisa uga soo tago dhahay wixii gurigayga yaal dhan waa kanaa marka sadaqada taas waaye dadkaneeto waa lagu cadaabaa waxaan adduunkaana waa itixaan waaye ma fahamtee waxaa haystid waa itixaan dadka cudurka lagu ridaa waa itixaan waxyaalaha qaarkood aa mareen waa itixaan adduunya ma fahamtee lacagtada lagugu itixaamayaa gaajada lagugu itixaamaya waxbaa lagugu itixaamayaa marka dadkaneeto inta dahabyo dhulka loo daadinaya ay ku kor soconayaan waa iska way dhammaanaysaa kule waa iska adduun gaaladana subxaan allah like you mentioned gaalada meel walbay cararayaan tvyaasha ka hadlayaan dadkaneeto intuu hala siiyo gaajaad dishay way intii lacag isku dari karaan isku dirayaan ayagana subxaan allah ayagana waxyaalaha ka socda ujeedaan waxaan rabaa inaan mise aan kusii yani ula sii dardaarmo waxay tahay ninkan carabka ah ha walaalsan yani adigu waxaa ugu ordaysaa waa nin muslina waa nin sidan ah laakiin aniga waxaan odhan lahaa dalkaaga adoo joogtaa ku dhaama si walba waa iska garan karnaa shaqa la-aan baa iska jirta waxyaaba badan baa dhici kara laakiin intuu nin caraba ku abuse garayn lahaa mise ku bahdili lahaa maalin walba adoo dhulkaaga iska joogtaa ku dhanta midda kale oo aan rabo waxaa weeye niyaho waa ognahay dowladda soomaaliya inay hadda ka hor programyo bilowday ee dad gabdho intay ku guraan mataqaanaa diyaarado ay u dirayaan raggan carabta ah wixii dhibaato ka timaaday waa yani meel walba yaalaan in gabdho badan la dilay la kufsaday wax walba lagu sameeyey midda aan rabo marka dowladdan cusub oo hadda noo dhalatay in ay bilowdo mise ay samayso ayaa waxay tahay inay joojiso programyada noocaas gabdhaha soomaalida maids ma aha yani looma dhalin inay nin caraba guriga u tirtirto daruuf way iska jirtaa oo gaajo iyo mataqaanaa shaqo la-aan way iska jirtaa laakiin waan baahanaya bakti looma cuno dowladda waxaan ka codsanayaa in ay dalka dhexdiisa shaqooyin uga abuurto ummadda eena kansasho contractyadan dadka lagu guranayo marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida aad kuwii horena hala noo soo celiyo boqolkiiba boqol kuwii hore wixii badbaaday hala noo soo celiyo waa mahadsantahay thank you very much marka aan ka faa'iidaysta liibaan waxaan rabaa ummadda soomaalida maadaama wadankii hadda ay dhibaato ka jirto saan wada ognahay صح nin walbo hadda waa waajib baa saaran dee wadankii hadda anigu na sugaya dadka masaakinta intaan u awoodi karno صح
ninba intii tabartiisa صح ha ku caawiyaan dhihi lahaa intaa yar baan barnaamijkan fursadda noo siiseen ugu dari lahaa marka insha allah waa maxsan tahay liman thank you very much warun hadda wadankii abaara ayaa ka jira dad badan ayaa gaajo u dhimanaya yani waxaan filayaa inaad daawateen programmadii horaan ka sameynay arrintaas oo kale yani inay wadankii uu hadda xaalkiisu aad u fiicneen hadday noqoto dhinaca abaaraha marka maxamed waa ku mahadsan tahay dadka waxaan rabnaa inaan encouragement ku sameyno si ay yani u caawiyaan dadkooda qof walba qofkiisa caawiya daawadayaal intaas ayuu ku dhan yahay caawa programkii Fafia Show waxaan filaynaa inaan isqabano next week iyo program cusub waad mahadsantihiin sida aad noogu timaadeen Fafia Show caawa thank you